بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان waxaan ka soo gudbinaynaa muxaadaro ku saabsan barashada axkaamta ciida, annagoo soo qaadan doona axaadiidtii uu rasuulkeenu nagu baray ama uu ku tawjiihiyey asxaabta sida ay maalinkaas ciidda u dhaqmayaan, sidii salaadii loo tukanayay, takbiirtii sidii loo qaadayay, waxyaalaha kale ee sunnada ah maalinkaas insha allahu tacaala aan ka sheekay doonaa. maalinka ciiddu ama labada maalmoodu ciiddu waxay ku khaas yihiin ummadda nebi moxameda ilaahay gooni u siiyey. waa laba maalmoodoo muslimiintu farxaan, ay isi soo booqdaan, ay cunto isi siiyaan, masaakiintooda ay xusiistaan, fuqarada ay quudiyaan, ayagu ay ismarxabeeyaan oo isi salaamaan oo isu hambalyeeyaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimid magaalada madiino sida sayidana anas binu maalik uu warinayo. markii uu yimidna asxaabtii dadkii ku noolaa ee asxaabta rasuulka ahaa magaalada madiino waxay lahaayeen laba maalmood oo ay cayaaraan. markii nebigu u arkay maalmahaas ay cayaarayaan ayay weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo yidhi maxay yihiin labadan maalmood. markaas ayay waxay yidhaahdeen kunnaa nalcabu fiihimaa fi ljaahiliya, labadan maalmood waxaan cayaari jirnay waqtigii jaahiliga ayaan cayaari jirnay ayay yidhaahdeen. marka waa maalmo sidaas. markaas ayuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha qad abdalakum bihimaa khayran minhumaa, ilaahay wuxuu idinkugu bedelay labadan maalmood oo aada jaahiligii cayaari jirteen kuwa ka khayr badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inkugu bedelay. yowma aladxaa wa yowma alfitr wuxuu ilaahay inkugu bedelay maalinka ciidul adxaa la yidhaahdo ee bisha carafo 10keeda ah, iyo maalinka yowmulfitri la yidhaahdo ciidda ramadaanka ku xigta ah. labadaas ayaa ilaahay inkugu bedelay. labadaasaa ilaahay ummaddan siiyey oo ku gooni ah ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaa jira waxyaalo la sunneeya maalinka ciidda ah oo qofka muuminka ahi inuu la yimaado ay fiican tahay. gaar ahaan hadda waxaan ka sheekay doonaa ciidda la yidhaha ciidulfitri ayaan axkaamteeda ka hadli doonaa oo ramadaanka ku xigta. waxaa sunno ah qofku markii uu ciidda aadayo inuu qubaysto ayaa sunno ah. weliba qof kasta ayaa loo sunneeya, qofkii salaada ciidda ka qeybgelaya iyo qofkii kaleba waa sunna qubayskaasi. qubayskaas waqtigiisuna wuxuu soo galaa habeenka ciidda 12 habeennimo ama 6 habeennimo sidii loo yaqaanba. markii la gaaro wixii ka dambeeya waa uu soo galaa waqtigiisii. intaas qofku waa uu qubaysan karaa ilaa salaada ciidda laga gaaro. inuu iscarfiyo is-udgiyo waa sunna qofkii maalinkaas. inuu dharkiisa kuwa ugu qurxoon oo u wanaagsan u xirto ayaa sunno ah. inkastoon dumarkii loo sunnaynin dhar dadka soo jiidanaya inta xirtaan inay bannaanka aadaan, maxaa yeelay dembigay ku dhacayaane. laakiin dhar kaloo caadiya oo aan dembi midab qurxoon iyo lahayn gooniya waa ay xiro karaan. marka inuu qofku marka isqurxiyo ayaa sunno ah maalinkaas. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa sayid cumar uu u soo qabtay jaakad qurux badan oo suuqa lagu iibinayay oo xariir ahayd. markaas ayuu wuxuu ku yidhi rasuulow jaakadan xariirtaa iibso, aada isku qurxisid maalinka ciidda iyo markii wafdi kuu yimaado. markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa haadihi libaasu man laa khalaaqa lahaa, man laa khalaaqa lah. waxay tani dhar u tahoo labis u tahay qofaan aakhiro waxba ku lahayn, maxaa yeelay xariirtii ragga uma bannaana. sidaas ayuu nabigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam. laakiin isqurxinta maalinka ciidda ah ma diidin nabigu calayhi salaatu wasalaam. muddo markii uu joogu nabigu jubbad oo diibaajaho xariirta nuuceeda ka mid ah ayaa wuxuu u soo diray sayid cumar
markaasuu sayid cumar wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow tani waxay labis u tahay qofaan aakhiro waxba ku lahayn ayaa tiri maxaad marka ii siiday aniga markaas ayuu wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam adigu iibiyo lacagteeda isticmaal ama maaragtay xaajaadkaaga kale ku gaaro masalan dadka dumarkaaga iyo gabdhahaaga iyo xaasaskaaga ayaa u hadiyey kartaa marka waa sunna maalinkaas in la isqurxiyo waxyaalaha sunnada maalinkaas waxaa ka mid a in maaragtay goobtii lagu ciidayey in loo lugeeyo ayaa sunno ahon waxba la korin haddii wax la korana oo faras iyo gaari iyo qofku wuxuu haysta u raaco meeshii hadday dhowdahay dembi kuma dhacaya laakiin sida fadliga badan inuu u lugeeyo ayaa fadli badanoo si uu ajar u helo tilaabo kastuu qaadayo sidoo kale waxaa sunno ah ciiddaas ciidulfitriga ee soonka ku xigta inuusan qofku gurigiisa ka bixin oo salaada ciidda aadin isagoon wax cunin oo inuu wax cuno ayaa sunno ah axaadiidta sunnooyinkaas noo caddaynaysa anas binu maalik wuxuu yidhi ilaahay ha ka raalli noqdee nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinka ciidda ah ciidulfitriga ma bixi jirin xataa ya'kula tamaraad ilaa uu maaragtay timir cuno nabigu ma bixi jirin riwaayo kale wa ya'kuluhunna witra tirsi isdheer ayuu ku cuni jiruu leeyahay tirsi isdheer ayuu nabigu u cuni jiray calayhi salaatu wasalaam hadda anas binu maalik waa khaadimkii rasuulka 10 sano u khidmaynayo wuu og yahay xaalka nabiga gurigiisa ka jiray cabdullaahi binu buraydana wuxuu warinayaa oo aabihiis ka warinayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uusan bixi jirin maalinka ciidulfitriga xataa yadcam ilaa wax uu cuno walaa yadcam yowma aladxaa xataa yusallii maalinka ciidul adxaana wax ma cuni jirin ilaa uu tukado marka waxaa sunno ah ciiddu hadday ciidulfitri tahay in qofku uu wax cuno intuusan bixinoo salaada aadin laakiin ciiddu hadday ciidul adxaa tahay inuusan qofku waxba cuninaa sunno ah ilaa uu soo tukado culammada intooda badanna sidaas ayaa sunno ah ayay yidhaahdeen oo inuu ciidulfitriga wax cunidda uu hormariyo ciidul adxaadana wax cunidda uu dibdhigo sayid cali waxaa laga wariyey allah ka raalli noqdee min asunnati an takhruja ila alciidi maashiya wa an ta'kula shay-an qabla an takhruj sunnada nabiga waxaa ka mid ah inaad ciidda u baxdid oo u lugaysid macnaha adigoo lugaynaya inaad salaada ciidda aadid ilaa tillaabooyinkaasa ajar lagugu sii qoraya iyo inaad wax cuntid intaada bixin ka hor ayaa sunno ah buu leeyahay marka salaadii ciidda ayaa la aadaya waa ka sheekay doonaa salaada ciiddu waxay dhacaysaa khudbada ka hor oo khudbada iyo ciidda waxaa la hormarinayaa salaada ciidda khudbaduna waa ay dambaynaysaa adilada noo caddaynaysa waxaa ka mid ah xadiidkii bukhaariga ahaa ee asxaabigii la dhihi jiray abi saciid alkhudri uu warinaya allaha ka raalli noqdee wuxuu yihi abi saciid nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinka ciidulfitriga iyo maalinka ciidul adxaa wuxuu u bixi jiray musallaha meesha dadka uu ku tukinayo fa awalu shayin yabda-u bihi salaa waxa ugu horeeyo nabigu uu bilaabi jiray calayhi salaatu wasalaam salaada ayay ahaaduu yidhi salaaduu ka bilaabi jiray kabacdi ayuu nabigu salaada kasoo gadoomi jiray oo kasoo jeesan jiray fa yaquumu muqaabila annaas markaasuu dadka asagoo soo qaabilaya oo kusoo jeesanayuu istaagi jiray waannaasu juluusun calaa sufuufihim dadkuna ayagoo safafkoodii ku jira oo aan dhaqaaqin fa yaciduhum wa yuusiihim wa ya'muruhum markaas ayaa nabigu wacdi jiray oo u dardaarmi jiray khayrka oo uu wanaagga fari jiray fa in kaana yuriidu an yaqtaca bachan qataca haddii uu rabo markaas inuu ciidan meel u diro masalan iyo ilaalo markaas ayuu nabigu sooci jiray aw ya'mura bishayin amara bih ama haddii uu doonayo inuu wax faro dadka markaas ayuu fari jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam uma yansarif kabacdi wuu iska gadoomi jiro wuu tegi jiray abu saciid wuxuu yihi markaa kabacdi dadku sidaas ayay ku sugnaayeen ilaa marwan binu cabdilmelik uu soo la gaaray waktigiisii oo amiir uu noqday markaas ayaan maalmaha ka mid a ayaan raacay u yihi marwan binu cabdilmelik ciidul adxaa ama ciidulfitra mid ka mid a ciidulfitri iyo ciidul adxaa mid ka mid a ayaan u raacay u yihi markii aan nimid meeshii lagu tukanayay ayuu mimbar ayaa loo dhiso nin la dhihi jiray kathiir binu salt uu u dhisay markaasaa yaziid marwan wuxuu doonay
inuu mimbarkii koro oo dadka u khudbeeyo intuusa tukan ka hor, salaaddii intuusa tujin ka hor inuu dadka u khudbeeyo. sunnaduna maxay ahayd in salaada la tukado kabacdina khudbada ciidda la akriyo. markaas ayaan ku dhagay uu yidhi maradiisii, markaasuu iga jiitay, mimbarkii ayuu koray, dadkii ayuu u khudbeeyay salaaddii ka hor. markuu u khudbeeyo hadhow hawshiisii dhammaystay ayaan waxaan ku inuu yidhi gayartum wallah, ilaahay baan ku dhaartaye waa aad badasheen oo sunnadii rasuulka waa badasheen, oo waxa weeye nabiga sunnadiisu waxay ahayd in salaada la tukado kabacdi khudbada la akriyo. markaas ayaa wuxuu ku yidhi abaa saciid qad dahaba maa taclam, waxa aa og tahay waa ay tageen, arrintaas waa lasoo dhaafay. markaasaan inuu yidhi maa aclamu wallahi khayrun mima laa aclam, waxa aan ogahay ayaa ilaahay baan ku dhaartay ka khayr badan waxa aan ogeyn, oo sunnadii rasuulku sidaasay ahaaduu yidhi aan ku inuu yidhi. markaasuu wuxuu igu yuu yidhi ina annaasa lam yakunuu yajlisuuna lana bacda salaa fajacaltuhaa qabla salaa, dadku annaga nooma fariisanayaan salaada ka bacdi, mar haddii aysan noo fariisanayn oo aanan wax u sheegi karin salaada ka bacdi, hadda salaada ka hor inaan u sheego wacdiyo la hadlo oo aan wixii danahon leena u sheega ayaan ku qasbanahay. marka dadku hadday madaxda dhibsadaan ma dhegaysanayaan, mogta waa ka kala tagayaan. salaada ciidu marka sidaas weeye, waa waxay ka horeydaa khudbada. waxaa kaloo axaadiista cadaynaysa ka mid oo jaabir bn cabdillah xadiis uu warinayo, wuxuu leeyahay nabiga ayaan maqlay calayhi salaatu wasalaam asagoo leh, macnaha wuxuu jaabira laga warinayaa asagoo leh nabigu ciidulfitrigii ayuu baxay fabada'a bisalaa qabla alkhudba, salaaddii ayuu ku bilaabay ciidulfitriga intuusan khudbada uusa akrin nabigu calayhi salaatu wasalaam. salaada marka ciidda la tukanayo sunno ma ahan in loo aadaano ama loo aqimo. salaad kasta oo sunnaana waa sidaasoo aadaan iyo aqim midna ma leh. asalaatu jaamica iyo waxyaalahaas ayaa loogu aqimaa. waxaa laga warinayaa cataa uu ka warinayaa cabdullaahi bnu cabbaas inuu diray cabdullaahi bnu zubayr ayuu u diray markii ugu horreydoo lala mubaayacooday. wuxuu yidhi lam yakun yu-adin bisalah yowma alfitri, maalinkii ciidulfitrigii salaada umuusa aadaamin. inama alkhudbatu bacda salaa, khudbaduna waxay ahayd salaada ka bacdi. riwaayo kale lam yakun yu-adanu yowma alfitri walaa yowma aladxaa, looma aadaamin ciidulfitrigii iyo ciidul adxa midna oo aadaan sunno uma ahan. imaamu tirmidina wuxuu leeyahy culamada ahlulcilmiga ahi iyo asxaabtii iyo keyrkoodba sidaan ayay ku camal faleen, oo salaatulciideynka iyo salaadaha kaloo sunnadaaba inaan aadaan iyo aqim loo sunnayn ayay ku dhaqmeenuu yidhi oo ay qaateen. sidoo kale cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu leeyahy nabiga micigiisa ayaan ciiddii ka qayb galay oo ciidda la xaadiray. abibakar sidoo kale ciiddii waa la joogay, cumar sidoo kale ciiddiiyaan la joogay, cuhmaan sidoo kale radia allahu canhum ciiddii ayaan la joogay. fakulluhum kaanuu yusalluuna qabla alkhudba, dhammaantood khudbada ka hor ayay tukanayeenoo markaas khudbada iyo waxaa horreeyey salaada ayaa horreeyey. labadaas khudba marka salaada ka bacdi ayay ahaanayaan oo la tukanayaa. marka takbiiro ayayna leeyihiin. takbiirta khudbadu tan ciidda waa ka sheekay doonaa, axaadiis damba uga sheekay doonaa. khudbada waxaa sunno ah inuu 9 takbiirood khudbada hore ku bilowdo khadiibku, khudbada labaadna 7 takbiirood inuu ku bilowdo. maalinkaas sunno ma ahan sida rasuulka laga wariyay calayhi salaatu wasalaam in goobtaas muslimiintu ay ku ciidayaan hub iyo midna in lala aado loo qaato sunno ma ahan. maxaa yeele wuxuu dhibaato gaarsii karaa dadka muslimiinta ah ee meeshaas ku ciidaya ayuu gaarsii karaa. markaasuu xasan wuxuu leeyahy xasanulbasri nuhuu an yaxmilu silaax yowma ciidin ilaa an yakhaafuu caduwa, waxaa laga reebay oo laga nahiyey dadkii inay maalinka ciidda hub qaataan haddaysa cadow ka cabsanayn. laakiin koleyta dad badan oo kasoo qeyb gelaya ayaa jira meelihii ciiddaha ama madaxa ama dad kaloo cabsanaya. dadkaas koleyta waa marka waa loo banaynaya, laakiin inay digtoonaadaan muslimiinta aysa hubkoodu dhib gaarsiin wey. takbiirta marka ciidda waxaa jirta takbiir ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa noogu sheegay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka kariimka ku leeyahay walitukmilu lcidda walitukabiru allah calaa maa hadaakum, si aad u dhammaystirtaan tiradii iyo ilaahay inaad weynaysaan hanuuninta uu idin hanuuniyey
ama waxa uu inku hanuuniyey darteed inaad ku weynaysaan. marka walitukabiru llaha ina ilaahay weynaysaantaan macnaheedu waxay leeyihin culammadu ku fasireen qayb ka mid ahi inay takbiiru yowmi lfitri inay tahay ciidulfitriga takbiirteeda inay tahay waxaas ilaahay uu tilmaamaya. oo takbiirta waxa weeye waa takbiirtan la takbiirsanayo maantona allahu akbarta la akrinayo. takbiirtaas marka waa sunno sida culammada jamhuurtu ay qabaan ciidda takbiirta labada ciidoodba la akrinayo. takbiirta marka hadda waxaan ka sheekeynaynaa anagu ciidulfitri takbiirteeda. takbiirtaas goormay bilaabataa goormaysa dhammaataa? takbiirta waxay bilaabataa habeenka ciidda qoraxdu markay dhacdo laga bilaabo ilaa imaamku uu salaada ka galo. takbiirtaas waa soconaysaa. waa takbiir mutlaqa mutlaq macnaheedu waxa weeye salaada ciribteeda kuma gooni ahan. salaadii ciribteedii, masaajidkii, waddadii, gurigii, suuqii, meel kasta ayay sunno ku tahay. waa mutlaq wey meel kastuu ku takbiirsanaya qofka ilaa uu imaamku salaada ka galo. laakiin qofkii aan imaamkii salaadii la gelin oo la tukan takbiirtaas waa u wadayaa, waa u sunno ilaa imaamku uu khudbada ka faaruqo, ilaa khudbada uu ka faaruqo. siiqada iyo qaabka loo takbiirsadana hadda waa la yaqaanaa, taas markastaa dadki ay wada akriyaan. maalinkaas waa ay u bannaan tahay dumarkii iyo inay kasoo qayb galaan meeshii ciidda muslimiinta inay kasoo qayb galaan ayaa u bannaan oo ay soo xaadirayaan oo wax uga tukanayaan. inkastoo culammada qayb ay leeyihiin gabadhii mujtahaada aheed oo la ishtahaynayay macnaha ma ay imaanayso, sunno ma aha, waa karaahiyo. laakiin waxaa la isku raacsan yahay inaysan labis qurxoonayn oo dadkii qurxoon oo dadkii soo jiidanaya inaysan soo qaadanayn oo aysan aan la ogolayn. oo mucadiya allaha ka raali noqdo waxay leedahay kunnaa nu'maru an nakhruja yowma alciid xataa nukhrija albikra min khidriha xataa nukhrija alxuyad fayakunna khalfa annaas fayukabirna bitakbiirihim wayadcuuna biducaa'ihim yarjuuna barakata dalika alyowmi wa tuhratah. waxay leedahay waxaa nala fari jiray, mar hadday saas yidhahdaan nabigaana amri jiray weye. nabigu wuxuuna amri jiray calayhi salaatu wasalaam inaan soo baxno maalinka ciidda ah, inaan soo baxno ayuu rasuulkuna fari jiray calayhi salaatu wasalaam. ilaa aan soo bixino gabdhihii bikaarada ahaa guryahooda aan ka soo saarno. da waqtigaas dad xishood badan ayay ahayno oo wax duruufi keenta mahna aan guryahooda uga soo bixi jirin. ilaa gabdhihii xishoodka badnaayo bikaarada aha oo guryahooda joogay xataa aan ciidda usoo bixino. xataa ilaa kuwii caadada iyo dhiigga qabay ina aan soo bixino ayaa nala faray. marka waa ay imaanayeenoo waa wax ka takbiirsanayeen, takbiirta ayay ka qayb gelayeen, laakiin salaada wax kama tukanayn. gadaal ayaan fariisanayna ayay leeyihiin. salaada gabdhaha caadada qaba wax kama tukanayn oo markii salaada la tukanaya xaggay fariisanayaan, laakiin takbiirtii ayay ka qayb gelayeen. waxay leedahay dadkay la ducaysanayeen ayagoo maalinkaas barakadiisa rajaynaya iyo dahaaradiisoo ilaahay dunuubta inuu ka dahiro ayagoo rajaynaya. sidoo kale umu cadiya waxay leedahay nabigeeni wuxuuna faray calayhi salaatu wasalaam inaan bian nukhrija alcawaatiq wa dawaati alkhuduur wayactazilna alxuyadu almusalla. nabigeeni wuxuuna faray leedahay calayhi salaatu wasalaam inaan maalinkaas gabdhihii cawaatiqda ahaa oo xoroobay aan soo saarno. macnaha gabdhaha xoroobay waa gabdho markay adugu 12 iyo waxyaalaha ka koreeya ay gaaraan ilaa 20 ay ka yeer yihiin. meesha hadda tiin ay jeerka ay ka yidhaahdaan macnaha waa xoroobeen. macnaheedu waxa weeye hooyadeed amarkeeda inay ka xorowday ayay isu aragtaa oo badanaa markaas inaysan wax maqlin ayay u badan tahay. marka sidaasoo looga jeedaa kuwaas inaan soo saarno guriga kasoo bixino. gabdhihii caadada qabay sidoo kale kuwii oo bikaarooyinka ho qolalkooda ku jiray inaan maalinkaas meesha muslimiintu ku ciidayaan aan keenno ayaa nala faray ayuu rasuulkeenina faray leedahay. laakiin gabdhaha dhiigga qabaahi salaadii wax kama tukanayaan ayay leedahay, khayrka kale ayay kasoo qayb galayaan. sidoo kale caruurtii waa sunno in maalinkaas ciidda la keeno oo ay meeshaas muslimiintu ku tukanayaan ay yimaadaan sunno wey. wuxuu warinayaa cabdiraxmaan binu caabis allah ka raali noqdo. cabdullaahi binu cabaas ayaan maqlay ayuu yihi isagoo leh kharajtu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama yowma fitrin aw adxaa fasalla ثuma khaطba ثuma ata الnisaءa fawacadahuna wadakarahuna waamarahuna bisadaqa. wuxuu yihi rasuulka ayaan raacay calayhi الsalaatu wasalaam maalin ciidulfitriya ama ciiduladxa ah. markaasuu nabigu tukaday kabacdina waa khudbeeyey
kabacdina nabigu dumarkii u tago wacdiyey waa waaniyey sadaqana waa u faray waa ka sheekey doonaa. hadda waxaan uga dan leenahay caruurtii yaryareed oo u baxaya meesha lagu tukanayo sida kutubta axaadiista u baabaysanaya xadiidkan. marka caruurtaas yaryar waxa weeye hadda markaas la sheegayaa cabdullaahi binu cabaas ayaa baabkan u baabaystaan culamada axaadiista. maxaa yeele cabdullahi binu cabaas waa uu yaraa, rasuulku markuu dhintuuba wuxuu jiray 13 sano. marka isagoo yar ayuu leeyahay nabigan raaca calayhi salaatu wasalaam. marka dadkii yaryarka ahaa in oo laga qayb gelinayo meesha lagu tukanayo ayay u baabaystaan culamada islaamka. gabadhii marka haddii aysan haysan dhar ay isku asturto oo duruufi keento ma ay aadaysa meesha. laakiin dumarkii kale ee muslimiinta waxaa la amray oo nebigu uu faray calayhi salaatu wasalaam inay haddaysan dhar u hadiyeynayn oo aysa siinayn inay caariyeeyaan maalinkaas oo wax ay uga qayb gasho muslimiinta ciidooda iyo salaadooda inay siiyaan oo la iscaawiyo. waxay warinaysaa gabadha la yidhaahda xafsa binu siriin waxay tiri kunnaa namnacu jawaariyana an yakhrujna yowma alciid. annaga gabdhahana ayaa waxaan ka manci jirna o u diidi jirnay inay maalinka ciiddaa baxaan. markaas ayaa gabari timid waxayna soo degtay qasr bani khalaf meesha la yidhaahdo qasrigaasay soo degtay. markaasaan u imiday tiri waxayna ii sheegtay tiri walaasheed ninkeedu inuu nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam duulitaan iyo jihaad u raacay 12 jeer inuu jihaad u raacay. waxayna sheegtay walaasheed sidoo kale 6 jeerba inay la socotay iyada ninkeeda oo 12 jeera ninkeedu nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam jihaad u raacay, 6 jeerna anaa la socday tiri. marka waxay tiri waxaan samay jirnay dadka dhaawaca iyo dadka jiran ayaan arrimahooda u qumi jirnay, dadka dhaawacana waa aan daawey jirnay tiri. markaas ayaan rasuulka waxaan ku eriyey tiri rasuulki ilaahayow acalaa ixdaana ba'sun idaa lam yakun lahaa jilbaabun anlaa takhruj. annaga mid naga mida wax dhiba miyaa haysta haddii aysan lahayn dhar ay isku asturto inaysa soo bixin haddaysa soo bixin. markaasaa nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam litulbishaa saaxibatuhaa min jilbaabiha falyashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin. saaxiibkeedu gabadha ayada la saaxiibkaahi ha u xirto ha caariyeyso dharkeeda waxa ka siido si ay maalinkaas ugala qayb gasho khayrkii muslimiinta oo ay khayrka markaas ha soo xaadireen iyo meesha muslimiintu ku ducaysanayaan. maxaa yeelay maalinkaas ducada waa la aqbalaya. marka waa sunno weye in oo la is-amahyo khayrkii oo la isu kaalmaystay ayay noqonaysaa atacaawun cala albiri wataqwa. khayrkii iyo samafalkii oo la isu kaalmaystay ayay noqonaysaa. sidoo kale imaamka waxaa sunno ah inuu dadka wacdiyo maalinkaas, gaar ahaan haddana dumarka inuu sii wacdiyo waa sunno oo rasuulka ka soo arortay calayhi salaatu wasalaam. markuu ragga wacdiyo haddii hadda waaba la hormaro microphone ayaa la haystaa oo raggii iyo dumarkiiba gaaraya oo la wada gaarsii karo. laakiin haddii microphonekaas meel uusa jirin la joogo oo dumarkii codkaas raggii lagu wacdinayo oo khadiibka uu ku wacdinayo aysan maqlayn, waxaa sunno ah in ayagana gooni loo wacdiyo. ibnu jurayj wuxuu warinayaa xadiid uu cada ka warinayo. wuxuu leeyahy jaabir bnu cabdillaahi allah ka raali noqde ayaan maqlayuu yidhi isagoo le qaama nabiyu sala allahu calayhi wasalama yowma alfitri fasalla. nabiga ayaa maalinkii ciidulfitrigii istaagay markaasuu tukaday, markaasuu salaadii ku bilaabay, kabacdi waa khudbeeyey. markii uu khudbadii dhammeeyena waa soo degay, markaasuu nabigu dumarkii u tagay calayhi salaatu wasalaam fadakarahun wa huwa yatawaka'u calaa yadi bilaal. markaas ayaa nabigu waaniyey calayhi salaatu wasalaam oo wacdiyey asagoo bilaal gacantiisa cuskanaya. wa bilaalun baasitun thawbahu yulqii fiihi nisaa'u sadaqa. asagoo bilaalna maradiisa fidinaya oo dumarku sadaqadii ay ku ridayaan. maxaa yeele nabigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inay dumarku yihiin ahlu naarka dadka ugu badan. marka sadaqaystuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam. sadaqadii ay sadaqaysanayaanna hadda nebi maxamed waxba kuma falayo, dadkii kaleo masaakiinta aha oo u baahnaa ayuu nabigu sii gaarsiinayaa. marka waa sunno inay dumarkii sadaqada iyo khayrka badiyaan. haddii maaragtay ninkeeda uu dhiban yahay oo uu baahan yahay iyo carruurteedana inay ayaga ka bilaabaan ayaa sunno ah. oo waxa weye waa tii xaaskii cabdullaahi binu mascuud allah ka raali noqdee markii nebigu uu sadaqada faray ayay u timid. markaase waxay ku tiri cabdullahi binu mascuud oo nebigu sadaquna faray, waxaana ogahay adiga iyo carruurtaada inay baahan yihiin. ninkeedii cabdullahi binu mascuud ay ku leedahay marka nebiga u tag oo soo weydii
haddii ay bannaan tahay in adiga ku siiya adinkaa idin siinaya u xaq leh. markaasuu yihi nabiga anugu ma soo weydiinaya waxaas adigu adaa raba khayr inaad samaysatida soo weydii. marka ayadii ayaa soo weydiiday. marka ay soo weydiidana nabigu wuxuu yihi waa sadaqo iyo silaturaxim isku tahay. marka haddii oo gurigeedii baahi badan ka jirto ama ninkeedii uu dhiban yahay oo baahan yahay ama carruurteedii ay baahan yihiin in ayaga ku bilowdo iyo qaraabada ayaa sunno ah. calaa kulli xaal sadaqadu waa u sunno dumarka. marka cadaa ayaa wuxuu ku yidhi sadaqada waxaa ibnu jurayda weydiiyo cadaa wuxuu ku yidhi sadaqadaas ay ku ridayeen go-a bilaal zakaatulfitrigii miya maadaama ay maalinkii ciidaheed aheyd. markaasuu yidhi maya walaakin sadaqatan yatasadaqna xiina idin waxay ahayd mayuu yidhi waa sadaqo ay waktigaas sadaqaysanayeen ayay ahayd oo gabdhihii ay faraatiyadoodii iyo dhagadhagahoodii ay wax ka sadaqaysanayeen oo ay ku ridayeen go-aas. markaasaan ku iriyuu yidhi aturaa xaqan cala alimaami dalik hadda ilaa rasuulkii ma joogee dadka kaleoo madaxda ah inay khayrkaasi sidaas dadkaas oo dumarka u faraan wax xaq ah oo lagu leeyahay miyaad u aragtaa inay tahay oo uu markaas dumarkii wacdiyo. markaasuu yidhi inahu laxaqun calayhim wamaa lahum laa yafcaluunahu waa xaq lagu leeyahuu yidhi inay dadkii wacdiyaan oo dumarkii wax u sheegaan gaar ahaan maadaama aysan khayrku wada gaarayn wacdigii hore uusan wada gaarayn ayaga ragga. marka maadaama xaq lagu leeyahay maxaa dhacay oo aysan u samaynayn ayuu yidhi. waxyaalaha sunnada waxaa ka mid a maalinka ciidda waddo haddii aad ku baxdid oo aada masjidkii ku aadid inaad waddo kale kusoo noqotid ayaa sunno ah si ajarku kugu bato. waddadaas aad marka hore ku aaday waxay kuu noqonaysaa khayr hadhow maalinka qiyaamahay kuu markhaati kacaysaa malaa'igtii iyo ciddii joogtay. waddada kalena waxay maalinka dambe marka dambe malaa'ig kale ayaa kuu markhaati kacaysa. marka inuu labada waddo kala duwo ayaa sunno ah. marka wuxuu leeyahay jaabir binu cabdillaahi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii maalinka ciidda ay tahay waddadu kala bedeli jiray qirada iyo waxa la akrinaayo suuradaha sunnada in salaada ciidda lagu akriyo waxaa sunno ah in la akriyo salaada ciidda ragcada hore in suuratu qaaf lagu akriyo ayaa sunno ah. ragcada dambena in lagu akriyo suuratul jumuca ayaa sunno ah. labadaas ragco in saas loogu kala akriyo macnaha ragcada hore in qaaf lagu akriyo suuratu qaaf ragcada dambena lagu akriyo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar ayaa sunno ah. sidoo kale waxaa sunno ah waxaa kaloo lagu akri karaa sabixisma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lgaashiya. takbiirta haddaba salaada ciidda la takbiirsanaya taas ayaa dadku ku dhiban yihiin salaada markii la galo. ragcada hore markii imaamku salaada xirto allahu akbar uu yidhaahda kabacdi markii wajahtuda la akriyo kadib intaan acuudu la gaarin ayaa waxaa sunno ah 7 jeer in allahu akbar la yidhaahdo kabacdiyaa acuudu laleeyahay faatixadana la akrinaya. haddii takbiirtaas isagoon dhihin acuudu uu qofku yidhaahdo takbiirta waktigeedi waa tegay kumana laabanayo. ragcada labaadna markii uu soo istaaga takbiirtu kusoo istaagay kadib wuxuu leeyahay 5 jeeru allahu akbar ruuxuu leeyahay. ayadana sidaas weeye oo sidaasa takbiiruhu ay u sunna yihiin. labada takbiiroo kasta dhexdoodana waxaa la sunneeya inuu kala googooyo markuu allahu akbar yidhaahdo inuu dikri ku buxiyo subxaan allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar inuu yidhahdo haddana takbiirta kale u yidhahdo. maalinkaas marka maalin farxadeed weeye oo xataa ciiddii cayaarihii iyo waxaas ay iska sunna yihiin. laakiin wixii aan dembi aan ahayn wixii dembiga oo ilaahi subxaana watacaala looga fogaanayo lama ogola. laakiin farxadda kale waa loo ogolaya muslimiinta. salaada ciidda waktigeedu cinda shaaficiya waxa weeye marka qoraxdu soo baxdo ilaa duhurka laga gaaro ayaa waktigeedu yahay. qofkii ay ka tagtana inuu soo qaleeyaa sunno ah. waxaana sunnaha qoraxdu xoogaa markay dheeraato in loo dib dhigo waa sunno. masjidkii ayaa fadli badana leedaha culummadu haddii dadka u qaado. haddii uusan dadka qaadinna meesha banaanka ah ayaa fadliga badan sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. maalinkaas in ciyaalka iyo xaaska iyo loo roonaado farxo badan in la muujiyo muslimiinta ay isu hambalyeeyaan isu soo dhoweeyaan fuqarada la caawiyo ayaa sunnaha. ilaahi subxaana wa tacaala hanaga dhigo kuwo bishan bisheeda farxad ku gaara kuwo si fiican ku ciida kuwo maaragtay dembigooda la dhaafo maalinkan kumanaanka la xoreeya. ilaahi subxaana wa tacala hanagu daro. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh.